dowlad ay haweenka ku nool ay haystaan 11% dahabka adduunka. guurka ama arooskana ma dhaco ilaa lagu qarash gareeyo dahab aad u fara badan. shacabka dowladdan waxa uu dahabka noloshooda ka yahay wax lagama maarmaan ah. haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa dowladdan iyo shacabkeeda iyo xiriirka adag ee kala dhaxeeya dahabka iyo qiimo ahaan inta uu u dhigmo dahabka laga helo dowladdan. haddii aad xiisaynayso muuqaalada noocan oo kale ah, like saar muuqaalka siina share garee. sidoo kale ha ilaawin inaad subscribe saarto channelka si aad ula socoto muuqaalada aan soo gudbino. sanad walba India waxaa ka dhaca 20 milyan oo aroos ah, waxayna dhammaantood wadaagaan hal shay oo ah in lagu qurxiyo aroosadda dahab aad u fara badan, kaasoo lagu qurxinayo dhammaan qaybaha kala duwan ee jirkeeda. haddii aroos uu dhacayo India, waxaa qasab ah in dahab la helo si loogu qurxiyo aroosadda. muhiimna ma aha inaad tahay faqiir iyo inaad tahay hantiile, waxaana markasta waajib ah in la helo dahab. sidaas darteed haweenka India waa kuwa ugu dahabka badan adduunka, wuxuuna u dhigmaa qiimo lacag ahaan ah dahabka ay haystaan haweenka India 950 bilyan oo dollar, waana lacag ay wax yar kaga harsan tahay 1 trilyan oo dollar inay noqoto. waxaana u badan haweenkaas kuwa xaasaska ah ee la qabo. waxaan gudagalaynaa inaan ka hadalno xiriirka adag ee ka dhaxeeya dahabka iyo shacabka India, gaar ahaan haweenka. India nolosha waxay noqon doontaa mid aad loola yaabo haddii uusan jirin dahab. sida uu soo bandhigay guddiga caalamiga ah ee dahabka, waxay India leedahay 22,000 tan oo dahab ah, waana wax shakhsi ahaan ay u leeyihiin dadka ee ma aha midka ay dowladda keyd ahaan u haysato. 12,000 tan oo ka mid ah dahabkaas waxaa laga helayaa macbadyada Hinduusiga ah ama mandirada sida ay Hindida u yaqaanaan, waxayna u dhigantaa lacag ahaan 1 trilyan oo dollar, taas oo macnaheeda ay tahay dahabka ay leedahay India inuu yahay in ka badan dahabka ay haystaan Mareykanka, Switzerland iyo Jarmalka. diinta Hinduusiga ah, dahabka waxa uu ka yahay shay muqadas ah oo meel sare ka joogo. macbadyada India waa kuwa ugu qanisan adduunka. macbadka Padmana Bhaswani waa macbadka ugu qanisan adduunka, waxaana macbadkan ama mandirkan kaligiis laga helayaa 3,000 tan oo dahab ah, taas oo ay tahay macnaheeda in ka badan 3 meelood 2 meel keedka dahabka Mareykanka. dahabka macbadkan oo isugu jira noocyada kala duwan ee dahabka waxa uu qiimo ahaan u dhigmaa lacag ahaan 20 bilyan oo dollar, oo laga yaabo inay noqoto miisaaniyad dowladeed ama mid ku dhow. India waa dowladda adduunka ugu isticmaalka badan dahabka, waxayna maalinkii kaliya dhoofisaa 2.3 tan oo dahab ah oo u dhiganta 2,300 oo kiilogaraam oo dahaba. warbixinno la soo saaray sanadka 2014 waxay sheegayaan in 3 macbad oo Hinduusi ah laga helayo dahab dhan qiimo ahaan 1 trilyan oo dollar iyo in ka badan. waana dahab shakhsi ahaan ay u leeyihiin macbadyadaas ee ma aha dahab ay dowladdu leedahay ama kaydka dowladda ku jira. sidaas darteed India waxay ku jirtaa kaalinta 10aad dhanka dowladaha ugu dahabka badan adduunka. dowladda India waxay leedahay 557.8 tan oo ah 557,800 kiilogaraam oo dahab ah, waana sababta keentay in India ay ku jirto kaalinta 10aad. balse haddii lagu daro xisaabta dahabka dalka India laga helo oo idil, oo ah kan ay haystaan haweenka iyo kan laga helo macbadyada iyo kan laga helo suuqa, shaki la'aan waxay noqonaysaa markaas India dowladda ugu dahabka badan adduunka, iyadoo weliba tiro badan ka sarreyn lahayd dowladaha kale. keedka dahabeed ay haystaan awgiis, shacabka India waxay awoodaan inay ku dhisaan magaalooyin waaweyn ah oo u dhisan si qurux badan sida magaalooyinka Dubai iyo Paris iyo kuwa kale oo la mid ah. sidaas ay tahayna
haddii aad aragto nolosha in badan oo ka mid ah shacabka India waxaad is leedahay dalkan 1 garaam oo dahab ah xataa lagama helo sida ay u liidato noloshooda awgeed. mowduucina intaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.